farintaydu maanta waxay ku socotaa macallimiinta dadka waxbaraya. Macallimiinta gaar ahaan quraanka iyo khayrka dadka baraya. Ninka muallimka ee khayrka dadka barayay waxa laga doonayaa inuu ku talagalo xilka uu hayo iyo mas'uuliyadda uu qaaday iyo mihnadan iyo xirfadan uu galay ilaagtiisana darajada iyo qiimahaas ay ka leedahay isagana inuu sidaa u aqoonsado uu ogaado inuu hawl weyn hayo hawshay u baahnayd laga doonayo inuu ogaado way wiilka dukaanka jooga subaxiya galab waa laga xisaabiyaa ninka makhaayadda joogana habeenkii baa marka la xiray rasiidyada la tiriyaa kan numberka la waayo wiilkii qoray baa hadduu caddayn waayo dad la dhuunteen mushaarkiisa laga gooyaa macallinkana waa laga xishoodaa waxaa lagu xurmeeyaa waxaan uu xambaarsan yahay kitaabkii xoolaa lagu siiyey dadku beerkoodii ilmahay ifka ugu jeclaayeen bay ku aamineen in ammaanadii ilaahay hortiisa dadka uu ka qaaday siday ahayd inuu gutaa laga doonayaa wax kasta oo ammaanada ugu kaalmaynaya waajibkiisa iyo diinta iyo quraankaana ubadkii iyo dadka jeclaysiinaya oo ikhlaas ilaahay dartii iyo ammaano ahna waajib ay ku tahay macallinka waxaa laga doonayaa meeshuu dugsiga ka dhigayo goobtuu ilmaha fariisinayo inuu ka dadaala laga doonayaa iskuulka markay aadaanna kuraas fiican in loo dhigo ilmo yar yara meel nadaafana la geeyo dugsiga markay yimaadaanna inay neeftu ku dhegta ay noqoto oo meel 20 qaadaysa 50 la fadhiisiyo oo rogaan 5 sano la dhaqin lagu fadhiisiyo oo marna biyo ku daateen marna caano ku daateen oo meel aan daaqad iyo iftiin lahayn la gariisiyo oo daaqadaho dhan loo xiray 50 ilmood oo meel ciriiri ah la galiyay oo roog wasakh lagu fadhiisiyay oo daaqadihi albaabada loo xiray ma waxbay baranayaan mise way sumoobayaan oo dugsiyada si wajka laga kordhiso macallinku isaga dadka diinta ku diraya madiin buu u shaqaynayaa mise shaydaan buu u shaqaynayaa macallimiinta qaarkood laba kala yaqaan markuu dugsigii si waj uga dhiso meel ciriiri oo kululna fariisiyo meel wasakh badanna fariisiyo daaqadahana ka soo xiro luqadda uu yaqaanana ul iyo dil ay tahay markuu doonana telefoon ku mashquulo qaarna daahintay xirtaan oo seexdo ilmihii wax baxaya wax jooga uusan aqoonin qofkani ma inuu diin dad jeclaysiyo ka shaqeeyay mise quraanka dadka iyo ilmaha inuu nacsiyo ku diru ka shaqeeyay quraanka bilaash kuma dhigtaan lacag baad qaataan ku daraxdaan rabtaan kuwa iskuulada dadka u furayna lacag bay ka qaadaanoo way ka ganacsadaan quraankiina waad ka ganacsataan maxaa meeshiina ka fool xumeeyay meesha kale idinkaaba dadku idinka dhaga nugul yahay markii meesha aad diyaarinaysaan caawiya haddaad tiraahdaan dad badan baa idin caawin oo qaar badan oo idin ka mid ah heli kara maxaa keenay macallimiin iswada ximinaya oo mid kale ku caydinayo maxaa keenay macallimiin quraan xambaarsan oo ilmo quraan baraya oo af xun iyo cay iyo ulmooyin wax kale baan aqoon maxaa keenay macallimiin dadku u akhlaaq xun intaba waynu ku haynaa hadday dawlad saxa jiri lahayd dugsiyo badanna waa la xiri lahaa macallimiin badanna xabsi baa la geyn lahaa waa la garaaci lahaa waxay noqotay baab iska furan kuwan quraanka aqoonin baa dugsi furanaya ha furto ganacsi ha ka dhigee meel macno la furi maayo iskuuladaba kuwa aan tacliin lahayn baa furto ka ganacsada war dugsiyada ilaahay inta ka yaabtaan meelo fiican ka dhisa maqaam fiican u sameeya adigii dugsiga lahaa diintana xambaarsana meel dhigasho dulli ah haddii aad adigu sawirkeeda soo dhigto ilmo bannaan haysta oo kuraas haysta oo dhar nadiifa haysta oo eray wanaagsan haystaay iskuul ku haysta
dugsigana intaan soo sheegnay iyo uli iyo dil iyo cay iyo canaan ku haystaay ma diintuu jeclaan mise waxa kaluu jeclaan yaa ka shaqeeyey diin nacaas yaa ka shaqeeyey waalidka maaha ilmahana maaha macallimiinta qur-aanka weeye macallimiinta weeye waxaa diinta dadka in qayb badan oo ka mida diintay dadka ku diraan qur-aankay ku diraan ilmahay nacsiiyaan waalidku ilmahoon wejiga dhaqanin oo dhalxan leh oo dharkoodu wasakhaysan yahay oo cadayga dawaday ku cadaydeen ku daadatay oo ku taallo bay dugsiga u soo diraan idinna waad aqbashaan laakiin iskuulka hadday u diraan iyagoo timuhu ku baxeen waa loo soo caydhiyaa haddaad soo caydhisaan way u soo labisayaan intaad yuniformyada u samayseen waalidku sooma wada gadin fiigaad ka bixiya dhahdeen soomaanay wada bixinin yaa laga rabaa aadaabta iyo akhlaaqda iyo ixtiraamka meesha inay ka shaqeeyaan waalidka maaha macallimiinta weeye maamulada dugsiyada weeye waniba ilaahay ka cabsada waniba ilmaha sidan u dhaama qur-aankan iyo diintan aad xambaarsan tihiin dulligan ka daaya war dadka aad qur-aanka iyo diinta ku diraysaan ka daaya ilmahan la idiin keenay intaan iskuul la geynin ilmaha dugsiyaa la geeyaa kuwa iskuulka laga reebaa qur-aanka ha bartaan la yidhaahdaa sanad buu ku jiraa juscamana ma gaadho maxaa sababa ilmo subaxii laguu keenay oo ilaa casarkii kula joogay sanadna kula joogoon camo gaadhaynin muxuu yahay ilmahan kitaabkii ka akhriyi karin muxuu yahay wax ma bartida khaa'in baa tahay wey macallinkaa khaa'ina wey waxaa igu yaab badnaa macallimiinta qaarkood oo macallin carruur si fiican u baray la hadlayo yidhi waraha si fiican haddaa u barto ay baxaan kastam kale heli maysid kuwan hadday baxaan u jiidoo wakhtiga u dheeree war ilaahay ka cabsada war waxaan waa ammaano inta aan la eegin fiiga laga qaadayo waxaan waa diintii oo dadka ku diraysaan waxaan waa waalidkii oo qur-aanka nacsiinaysaan waxa waa ilmihii oo islaamnimadii aad ku diraysaan ma garanaya macallimiinta qaarkood si aynan ogeyn bay gaalo u shaqaynayaan oy diintii dadka nacsiinayaan oy qur-aankay ku dirayaan magaaladan waxaa laga sheegtay dugsiyadii qur-aanka ilmihii waxba kuma bartaan ilmuhu waxba ma bartaan subax ilaa galabna dugsigay fadhiyaan lacagtiina waa laga bixiyaa maxay meesha ka qabtaan marka tusaalaan idiin siin anugu ilmahan dhalay baa qur-aan dhiganayay maalinkii dambaa la yidhi wuu dhammeeyey xafladdii baa lagaa rabaa waan u yeedhay juscamo kitaabka uu ka akhri waaye inuu xifdiisan iska daa juscamuu kitaab ka akhri waaye maalin dambe baan wakhti lama filaana dugsigii aaday dugsigoo dhexda mare la sii daayey ciyaalkiina buuqayaan macallinkiina telefoon jaatin ku jiroo marada uu sii daystay baan u galay maradaan ka fayday imuusan arag inaan soo galay iyo inaan mare ka fayday ma ogaba jaatin buu ku jiraa konton carruuroo meesha u dhex fadhiyaan waxaas macallinima ma ilahay ka cabsiba war waxaas ma mas-uuliyad iyo ammaana war waxaas madiima waalidku waa meel quraan waa macallin quraan bay weli idinkaga xishoonayaan way idinku xurmaynayaan laakiin xurmadii iyo qadarintii sida xun inaad u isticmaashaan oo ilmihii mas-uuliyaddooda dayacdaan aakhare xaggeed geynaysa xoolahan aad cunaysaan waa xaaraan markaas wixii idinma samaynaysaane adigii iyo ilmahaaga iyo reerkaaga xaaraan markaad ku koriso weliba xaaraan kitaabka ilaahay lagu cunay xaaraan suuqa dhar iyo raashinaad gadaysa iyo gaari iyo shamiintaad iibinaysa xaaraan lagu cunay waaba dembi weynahe xaaraan qur-aankii lagu cunay ka warrama war ilaahay ka yaaba macallimiinta war sidan qur-aanka u dhaama war sidan ilmaha ka daaya war waxaan akhriya adduunba waad ku horseegaysaan dugsiyadan ilaahay barakayn maayo adna cilmi la barakaysiya qur-aan barakaysan ood aakhira ajirkeesha ka dhexli mayside kuwii shayddaanka u shaqaynayay baa sidaa ku noqon war ilaahay ka yaaba macallimiintii sidan war dugsiyadan sidan ka bedela sidii haween wada kala hinaasay oo wada kala masayroo la wada qaba intaa isgarab ordaysaan iskuulladaba way isku biiraan adduunyada iyo shirkadihii intaad koox koox isugu biirtaan iskuulla dugsiye meelo fiican oo quruxsan dhisa iskuulladaba lacagta waan ku bixinaa ee lacagtaad dhigtaan waan bixinaynaa macallimiin fiican oo tababaran keena imtixaanaad midaysan u sameeya markay wax noqdaan lacagna waa ka dharkaysaan aakhirana ajir baad helaysaan laakiin xataa saad lacag adduun ku heli lahaydeenna ma taqaanaan saad magac fiican ku samayn lahaydeenna ma taqaanaan
saad ilaahay uga cabsan lahaydna ma garanaysa aakhirada ku helin war macallimiinta ilaahay ka yaabo markaan saaleeyahay kolba ummadda macallimiin fiicanna waa ku jiraan dugsiyo fiicanna waa ku jiraan laakiin boos lagama helo dugsiga arday fiican soo saara indhahda biyo ka kanta boos fiican ka heli mayso waxa lagu dhihi hadda tagto uu buuxsamay January soo socotay kuwana wax tagaa la laayahay kuwana January 22 imaa lagu dhihi uu buuxaa meel fiican bay ku yaalaan arday wax fiican bareen baa la arkay haddaad wax fiican arday soo saartaan gudaha dibadba carruur baa leedinka keeni laakiin idinku fi wal bashirka isdiktaal uu gowracaba la yiri marka siwajka saldhig ka dhigataan meel markii la soo galo qofku wadnuhu istaagayana ilmaha fadhiisisaan akhriya duuntana ku liibaani meysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala macallimiinteena Allah inoo soo haruurinta naga dhinsan waalidkeennana waxbarashada iyo wanaaga kuwa garab u noqda Allah ka dhigo inaga ilaahay subhanahu wa ta'ala ku diina garab istaaga gudaha Allah naga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار